Soomaali badani waxay raaga ogaas u aqoonsan tahay amaba ay ku sheegaan hormuudka maansada Soomaalida. Tilmaantaas waxaa siiyay lafagurayaashii hore ee maansadeenna raggii awoodda dheeraadka ah u lahaa kala saaridda maansayahanada ee kala hormarintooda lagu halayn jiray. sidaa darteed tilmaanta hormuudnimada maanso ee raaga waxay ka mid noqotay arrimaha aan waana cidina muranka gelin ee sida weyn taariikhda suugaanteenna ugu xusan. annaguna haddaanu nahay lafagurayaasha xilligan inaan kuwaa hore go'aankooda ku raacna ha joogtay wax kala nooma eka. sababtuna waxay tahay annaga oo ku kalsoon sidii ay dhegihii hore ee Soomaalidu u kala garan ogaayeen gabayaaga iyo gabayaa iska yeelka iyo maansadiisa inta naga soo gaadhay oo muujinaysa inuu ahaa hal abuur ay maanso curintu aad ugu fududayd oo awood u lahaa eray waliba halka uu ku habboon yahay inuu ku hubsado. hal abuur ujeedooyinka maanso dooran ogaa kana salgaari ogaa. hal abuur tuducyada maansadiisa ilaa maanta lagu halqabsado oo ay Soomaalidu ku mahmaahdo kolka ay xaajoonayaan ee ay geedka shirka ku dhan yihiin. hal abuur ay maansayahanada cusub higsan jireen iskuna dayi jireen inay isku dhareerayaan ha yeeshee ay inta badan ku dabalumi jireen. dhanka kale waxaa raaga loo tiriyaa inuu isagu ahaa maansayahankii gabayga Soomaalida fariisiyey taa oo loola jeedo inuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee gabayga ku bilaabay hoyaalayay 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 hooye sidaasna uu ku noqday ninkii dhidibada u aasay farsamo ahaan habka ilaa maanta gabayga loo curiyo amaba asaaska u dhigay tirada alannada meeliskiisa lagu jaangooyo. maansada tirada yar ee raaga naga soo gaadhay waxay u badan tahay ujeeddada tilmaanta haddii ay tahay tilmaan faras haddii ay tahay tilmaan tiiraanyo iyo haddii ay tahay tilmaanta murugada geerida sokeeye ay nafta aadanaha u keeni karto. horaannu u maqlay isaga oo faraskiisii walhad geeraar qurux badan ku tilmaamaya isaga oo siduu ugu tiiraanyooday tilmaamaya geerida afadiisii caanka ku ahayd magacii uu isagu u bixiyey ee ahaa Faadumo ila biyale ee uu aarku ka cunay iyo isaga oo u baroor diiqaaya walaalkii ugaas Xuseen ugaas Warfaa oo si kadis ah iilashadiisii loogu soo warramay. waxda Soomaalida dhexdeeda aan weli lagu faafin waa gabay gaaban oo isna tilmaan ah kuna saabsan boqorka dugaagga ee aynu libaax u naqaan. libaaxu wuxuu Soomaalida u yahay astaanta xoogga geesinimada iyo buruudka ninka dhiiran ee goobaha dagaalka ka sheegan ninka aan halista ka waabanee warmaha ku soo ganan shafka u dhigta ninkaas oo kale ayay Soomaalida hore magaciisa intay aar ku darto ugu yeeri jirtay Maxamed Aar Cali Aar iyo wixii la mid ah. haweenka qudhooda toodii camalka ragga yeelata ee gar iyo guddoonba iyaga iyo geedkooda ka dhex muuqata iyadana aaray ayaa loo bixin jiray. libaaxu waa bahalka ay xoolo dhaqatadu ugu cabsida badan tahay ee haddaan wadaad la waayin reerkii meel dagaaba uu durbadiiba ka xirxirto. qaar ka mid a odayaashii aanu soo gaarnay waxay ku sheekayn jireen ka hor qoyska amaba dadka u weerari doono inta aanu libaaxu muuqaal ahaan ku soo gaarin in la dareemo dabayl qabow badan oo lala qabandhaxoodo kana soo hormarta oo waayo araggu ay ku garan jireen aar libaax amaba gool diihaalsani mid ahaan ama wadar ahaanba inay kol dhow ku soo fool leeyihiin. xagga buruudka waxay rumaysnaayeen eebbaweyne inuu bahalka ku abuuray haybad dheeri ah oo lagaga baqo indhihiisa iyo kuwa aadanuhu hadday qumaanta isugu dhacaanna in kuwa aadanaha uu iftiinka araggu intii cabbaar ah ka maqnaado. sidaas oo ay tahayna waxaa laga warhayaa inay degaamada Soomaalida qaarkood ka jireen rag habeen madow uu libaax u soo dhacay dabadeedna aardoon u qalab qaatay oo waa berigii inta raadkiisii ku dhacay barqankii ugu tegey isaga oo baruurtii xalay la idaadsan oo geed haraca geddi cad u jiifa. halkaas baa fooda la isdari jiray inkastoo in la rumaysto ay adag tahayna waxaa la wariyaa marmar ninkii ciilka qabay inuu adkaan jiray oo libaaxa goobtaa ku dili jiray. nin ka tegey oo fool adayg iyo tiirrinimo isku darsaday ayaa kolley hawshaa biimada ah u bareeri jiray dabadeedna waa haddaan tiisii ku geline wuxuu mudnaan u lahaan jiray ammaanta iyo aqoonsiga bulshada uu ku dhex nool yahay. inta la isu tilmaamo oo farta la isugu fiiqo ayaa la odhan jiray kaas ma aragtaa waa ninkii dayrtii hebla ahayd libaaxa meel hebla ku dilay. faalladuba hayla dheeraatee weli xusuustayda waxa aan ka tirtirmin qodob dheer oo bilowgii lixdameeyihii uu Sayd Maxamed Cabdulla Xasan ka qoray barbaariyihii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Axmed Cali. qodobkaas qayb ka mid ah oo uu Axmed Cali ku dulmarayay xoogga iyo geesinimada raggii hore ee Soomaaliyeed ayuu sheekadan soo socota ku soo qaatay oo doodiisa u soo dariishaday. goobtu waa 1951 goobtuna waa xafiiska guddoomiyaha degmada Hargeysa Mr. A. Bolton. sarkaalka Ingiriiska ah hortiisa waxaa taagan oo dhowaan ay boolisku miyiga ka soo qabteen nin waran cadda la yiraahdo
oo loo soo xiray inuu agagaarka magaalada libaax ku dilay wuxuu ku eedaysan yahay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta inuu jabiyey xaaji waran cadde si wanaagsan ayuu isu daafacay markuu caddeeyey libaaxa ay xukuumaddu u haysataa idihiisa wan ka mid ah inuu cunay garsoorihii oo doodda xaaji waran cadde ku qanacsan isla markaasna xeerka uu jabiyey maanka ku haya ayaa ugu dambaystii soo saaray guddoonkii laga sugaayey waxaa waran cadde la soo hordhigay xaashi daabacan oo lagu amraayo inuu saxiixo taas oo uu ku ballanqaadayo timaadada in aanu mar dambe libaax kale dili doonin mar walbase ma ahayne taas oo kale marmar dhif ah ayay dhici jirtay inta badan waa la aqoonsanaa ba'naanta libaaxa ridmiyiga soomaaliduna caado uma lahayn inay libaaxa xoola kula diriraan arrintaasna waxaa muujinaysa mahmaahda caanka ah ee ah libaax nin aan aqoon baa lax ka rita malaha mahmaahda waxaa ku qarsoon canaan iyo yasid wada jira oo loo jeedinayo ninka lax uu kala tegey awgeed naftiisa u biimeeyey oo libaax ilaah isaga ka badbaadiyey uga daba tegey waa run oo waxaa mahmaahda ku qarsoon liiti maxangaga inuu yahay ninka waxa uu libaax yahay garan waayey oo awooddiisa la wada qiray isagoo aqoonsan waayey ba'naanta libaaxa rag dhab u aqoonsaday way jireen oo waxaa ka mid ahaa nin magaciisa guluf cismaan la iigu sheegay oo malaha loogu sheekeeyey ifka inay ku nool yihiin rag libaaxyo rabaayad ah xadiya ku haya oo maalintii 2-3 jeer gacantooda hilbo loogu talagalay ka siiya intay weliba saraaxaanna mar fariisiya marna kiciya taasi in aysan geesnimo ahayne ay kulley xeel iyo xirfad tahay ayuu ka badan waayey kadib markuu warkii la ashqaraaray tixdan gaaban ayuu kolkaa tiri wuxuu yidhi xidigaha ninkii kale yaqaan iga xisaab roone nin xeraystay geel xubin ka badan xoola iga roone ninka xarafka xaashida ku dhigi iga xuduud roone maskoo xiimi xoodhida nin qaban iga xiniin roone xabad hanata mooyee libaax meel xarshina jiifa war aarkaa nin xoodaamiyaa xeelad iga roone libaax nin aan aqoon baa lax ka rita ayay soomaalidu ku soo koobtay fikradda ay bahalkaa ka qabto iyo sida ay u aragto raaga ogaasna wax kale ma yeeli doonee aragtidaa soomaalida ayuu si qurux badan ugu sheegay 4 meelis oo gabay ah uuna ku helay qiimaynta soomaalida la xilliga ahayd iyo kuwa xilliyada dambe dirkaba wuxuu raaga 4 meelis ku sheegay tilmaan kasta oo libaaxu leeyahay muuqaal oogo haddii ay tahay iyo haddii ay tahay falaadyadiisa iyo aadanaha markaas u dhow dareemadiisa argagaxa ay ku dhaliyaan wuxuu xusayaa codkiisa hinraaga loo yaqaan ee markii uu maqlo ay qofka baqdin oo idili isugu timaado muuqiisa markii indhaha lagu dhufto xagaha wax laga dayo iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun ugu xoolo beeli karto indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin haddii uu xataa xagaagii hore ahaa raadkiisa markii la kor yimaado laga gariiro ciddiyihiisa afka badan ee wixii malagood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa baas ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisyo 4 oo sidaan meel hore ku soo xusay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii dhagaysan jirtay ee uu la noolaa wuxuu yidhi codkii laga baq araggiis la carar wadana cayreey il xasuus leh raadkiis carjaba laga xabsoonaaday ciddiyo dhuuriyo oo faarbullow iyo reen baasle ma waa lala cayaaraa libaax laga xaraysiiyey jawaabta la inaga filayaa kolley waa maya maxaa yeelay libaax xaraysani guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan ruuxuna ka qarsoomi karin oo soomaalida raacatada ahina ay waayo aragnimada ku hubsatay waxaase hartay su-aasha ah maxaa talow raago ugu wacnaa tirinta tixdan runtii lama oga waxaase la malayn karaa libaaxa laga xaraysiiyey inuu isagu isula jeeday uuna uga hanjabaayey rag inta isku dhereeriyey mindhaa gabay ku maagay kanina waa diblomaasiyadda raacatada iyo maansada soomaalida ama waxa loo yaqaano ergeynta waa hal barnaamij oo 2 loo qaybin karo sida bulshooyinka kale ee dunida soomaalida reer miyiga ah ee raacatada u badan waxaa dhex mara qardoofooyin iyo khilaafyo uu halganka noloshu sababo qardoofooyinkaas waxaa ka mid ah dilka daqarka dhaca xoolaha kufsiga aflagaadada iyo wixii kale ee la halmaala sida ay qabaan soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhundaloolin iyo weliba qaar ka mid a waxqorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada run ma aha in qardoofooyinkaas dagaal iyo colaad qura lagu furdaamin jiray
daaqa iyo biyaha inkastoo ay qabaa'ilku halgan joogta ah ugu jiri jireen xoolaha noolna ay inta kala dhacaan xasarada ka iman jirtay haddana waxay u eg tahay kabadbadis haddii lagu doodo dagaalku inuu ahaa waddada keliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qabto waxaa jiray hanaan nabadeed oo dhaqanka soomaalida ilaa maanta xididdo adag ku leh kaas oo lagu magacaabo ergeyn una eg waxa ay reer galbeedku diblomaasiyadda ugu yeeraan ee xidhiirka dunida maanta saldhigga u ah su-aasha koowaadi waxay tahay maxaa laga ergeyn jiray marna lama inkiri karo halganka adag ee nolosha reer guuraagu ku dhisan tahay inuu sababi jiray dagaallo qabaa'ilka dhex mara oo laga yaabo inay dheeraadaan oo sanooyin gaaraan ha yeeshee waxay ahaayeen qaar aan dhiig badani ku daadan jirin marka la barbar dhigo colaadaha waayahan dambe raacatada ka dhex aloosma hubka qarxana ay u adeegsadaan waxay u badnayd colaadaha hubaysanay inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaani dhacanto oo nabad raadin oo idin laga quusto guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha siday xeerar uga lahaayeen ayay soomaalidii raacatada ahayd xeerar uga lahayd dagaalada iyo dhibaatooyinka kolba dhex mara sidii looga xaali lahaa ka hor inta aan dagaal lagu tashan aarsina lagu guddoonsan tolka gardarrada tirsanaya wuxuu isku dayi jiray inuu ergeyn wax ku helo si loo baajiyo dhiig daata iyo colaad baahda waxay ka ergeyn jireen nin ama rag la laayey magtood oo la siiyo xoolo laga qaaday oo inta badan geel ah oo loo soo celiyo ama xadgudub dhaqan xelood ku saabsan oo loo geystay in laga xaalmariyo su-aasha labaadi waxay tahay ayaa loo ergeyn jiray waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo soomaali ah iyadoo mar walba la fili jiray in ergeyntaas guul laga gaari doono haddii godob raagtay oo waanwaanteeda laga quustay aanay dhex ool tolka wax sheeganaya iyo midka wax loo sheeganayo shir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yihiin ayaa lagu go'aamin jiray in tol hebel erga loo diro lana weydiisto xaqa ay u sheeganayaan inay gudaan ergada la dirayaa deera ka halqaad ma ahayne waxay ka koobnaan jirtay rag la miiray magacyo waaweyn leh doodyaqaan wada ah xeerarka tolalka u dhaxeeya aad u yaqaan taariikhda labada qolo ee wax kala galeenna in badan ka og haddii la heli karo waxaa kale oo ergada inta badan madax u noqon jiray amaba la raacin jiray nin gabayaa ah oo caan ah tolka wax loo sheeganayo maanse ku beerdulucsan kara dood iyo dacwina wax kaga soo xoshan kara raggaas xulka ah markii la sooco ayaa lala ballami jiray waxaana qodob loo xusuusin jiray xaqa ay reer hebel ka doonayaani waxa uu yahay inta uu tiro la eg yahay iyo waxa haddii loogu yabaho amaba loo ogolaado ay ku qanci karaan ergadu waxay wakiil u tahay tolka ay u dhasheen oo idil waxayna doontaa xaq maqan oo soo celintiisa lagala soo ballamay sidaa darteed badanaa go'aan aan la isku ogeyn ma qaadato waxay soomaalidu ku mahmaahdaa erga wixii la farana waa geysaa wixii la siiyana waa cuntaa haddii kolka wixii ay sheeganayeen aan la wada siinay qaar loo ogolaado ergadu waxay dib ugu noqon jirtay tolkii soo dirsaday ee ay ka dhasheen dabadeedna shirka loo dhan yahay ee tolweynaha ayay arrinta u soo bandhigi jireen si wixii laga yeeli lahaa halkaas looga go'aamiyo kolba wixii guddoon ah oo shirkaas lagu goosto ayay ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganayay tallaabadaa dambe tolka wax laga doonayaa wixii uu ka yeelo ayay nabadii ka dhalan jirtay amaba ay colaadi ka aloosmi jirtay xubin ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd magta ay daba joogaan ama hantida in loo celiyo ay doonayaan inay si waxan u sheegtaan oo gartooda oo aan daldalool lahayn shirka tolka ay u ergeynayaan ka sheegaan taas iyadoo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray tilmaamo ay ugu weynayd oo adkaysiga dhibaatooyinka hawsha ay u socdaan kaga imaan kara marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la af la gaadeeyo in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin iyo in wada hadallada lagu raajiyo si ay inta u daalaan u caroodaan oo iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo sooci jiray rag adag oo ku tilmaaman dulqaad dheeraad ah xag oogo iyo dabeecad labadaba mufti caan ah oo ay soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa ahayd erga waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan dhagax qorax uga adkaysi badan doofaar xay uga adkaysi badan kurtunna dhaxan uga adkaysi badan taas macnaheedu wuxuu yahay ergadu si ay hawsheeda ugu guulaysato inay u adkaysato xumayn kasta oo ay ku fali karaan dadka ay u ergeynayaan qaarkooda anshaxa daran iyo dandarro kasta oo kaga imaan karta dabeecadda adag ee nolosha miyiga su-aasha saddexaad waxay tahay sidee baa ergada loo qaban jiray ama loola dhaqmi jiray dhaqanka wanaagsan ee soomaalidii hore siduu ahaan jiray
ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhaweyn jiray waana la soori jiray waxaana loo waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo ay dharaartii harsadaan halkaas baa loogu geyn jiray cad iyo caano wixii loo hoydin karo ilaa arrinta ay u socdeen loo yeelo ama lagu diido tolka ergada loo yahay ee wax lagu sheeganayaa wuxuu isna diyaarsan jiray niman ergada timid dhigood ah oo kala mid ah dhinacyada aftahamada iyo gar aqoonta kuwaas oo ku dadaali jiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya meelaha sheegashooyinka ergadu ay goldaloolooyinka ku yeelan karaan haddaba diblomaasiyaddu haddii ay tahay awoodda ah in dadka si qabow lagula xaajoodo sidaasna is-afgaran waaga jira lagu furdaamiyo soomaalidii raacatada ahayd waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaa loogu tababarin ha yeeshee qaabka nolosha degaankoodu uu ku xarbiyey sidaa darteed baa shaqada ergada soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa amaba loogu magacaabi karaa diplomatic mission waxa la yidhaahdo sidaa darteed buu guddiga af soomaaligu toddobaatanaadkii magac ku habboon ugu helay howlwadeennadii soomaalida ee fulinta danaha dalkooda loo geeyey xarumaha laamaha jamciyadda qurumaha iyo wixii la mid ah looguna bixiyey ergada soomaaliya ee fadhigeedu yahay New York, Geneva ama Brussels sidaynu meel hore kusoo xusnay habka ergada lagu dhaqi jiray amaba loo qaban jiray iyo soo dhaweyntii ay kala kulmi jireen tolka ay martida u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsan oo inoo muujin kara qayb ka mid ah xiriirkii bulshadii hore ee Soomaaliyeed iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga tanaasulayn ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan sidaas ayuu dhaqanku ahaa ha yeeshee marmarka qaarkood ayay dhici jirtay in ergada la xumeeyo oo hadal ama falal quursi leh lagula kaco amaba xataa la laayo taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba'an oo kaba daraata tii markii hore ergeynta keentay su-aasha afraad waxay tahay dherarka muddada ergeyntu maxay la ekayd arrinta xiisaha leh ee loo baahan yahay in halkan lagu soo qaadaa waxay tahay dherarka waqtiga ergadu ay ka dhursugayso qolooyinka ay wax u sheeganayaan sidii hadba loogu garaabo ayuu dherarka waqtigaasi ku xirnaa haddii muddo gaaban dantooda loogu fuliyo oo wixii ay u ergoonayeen loo yeelo ma ay raagi jirin waxayna ku noqon jireen reerkii iyo tolkii awal hore soo dirsaday haddiise waxba loo diido oo haa iyo maya midna ay waayaan amase si uun loogu madax adaygo ama ma degdegi jirin dhirifkana intii ay kari karaan way iska ilaalin jireen waana iska nagaan jireen waxayna ku adkaysan jireen wada hadallada labada dhinac in aysan marnaba joogsan marmarka qaarkood sanad iyo ka badan ayay reeraha ay wax u sheeganayaan dul fadhiyi jireen iyaga oo si walba isugu dayaaya inay kolba soo bandhigaan sababo cusub oo ay ku mudan yihiin xaqa ka maqan in loogu celiyo taas oo kale raggii ay ku dhacday waxaa ka mid ahaa gabayaagii la odhan jiray nuur maxamed oo loo yiqiin nuur dhegey ahaana gabayaa caan ah oo noolaa qiyaasta bilowgii iyo bartamihii qarnigii 19aad wuxuu ka mid ahaa dadkii degi jiray gobollada soomaaliyada bari maansada qarada weyn leh ee uu reebay ka sokow wuxuu aad magac dheer ugu lahaa ama magac dheer ugu baxay dhinaca ergeynta isaga oo u kala ergeyn jiray qabaa'ilka soomaalida ee kala dega dhulka haatan aynu u naqaan bari sool nugaal iyo sanaag wuxuu ka mid ahaa ragga dulqaadka dheeraadka u lahaa ka dhursugidda kuwa wax loo sheeganayo isaguna gabay ayuu dulqaadkiisa xagga ergeynta ku waariyey geel la dhacay ayuu ka ergeeyey wuxuu tegey meel la yidhaahdo karamaan oo halkuu isagu degi jiray aad uga fog qoladii geela dhacdayna ay yaalleen wax walba oo uu geelaas ku soo ceshan karo oo habnabadeed ah ayuu isku dayey waase lagu madax adeygay waa loo garaabi waayey hal sano markii la joogay oo meeshii ay u guuraanba uu ula guuray ayuu maalintii dambe isaga oo keligiisa geed reeraha ka yara durugsan halkiisa fadhiistay wuu fakeray waxbuu maamiyey wuxuu isa soo hordhigay wixii uu soo maray iyo waxa uu timaadada filan karaayo ma bishii uu yimid bisheedii kale ayaa la joogaa kulaylka iyo hanfiga lala joogay la'yahay makaliishii dayreed ee uu ergeynta u soo sado caalayteedii hamba maxilligii badfuranka ayaa la gaaray oo waxa u muuqdaa waadoonyihii oo inta hirarkii u samaadeen bari carab u shareecdayba kabihii miyaa ka dhammaaday oo ma faraskii uu ku yimid baa haatan gabow ku dhow dumarkii iyo carruurtii miyaa nacay oo horfadhigiisa dheeraaday haatan ka xiisa dhacay ma waxaa haatan u caddaatay oo inaba aan caad ka saarayn hashii mayro ahayd geelii ay ku jirtay inaan loo soo wadin xoola ugama soo socdaane alla ilaahay ha isaga taga karamaan oo reerkiisii ha isaga noqdo intaas baa tixdan soo socota ee quruxda badan ayuu ku sheegay oo ku waariyey wuxuu yidhi kayaha dayreed miyaa kacakan ii muuqday ma baqaaladiibaa ka wiray kirada doonaayey
kalkaan imi kalkiisii miyaa kaabiga isaaray karmihii miyaa iga leeday een karan aqoon waayey duqaan daba kashlayn jiray miyaa haatan kaba beelay dumarkaan horkuudiday miyay saaka kahanaya kudhallaayo geelaan u imi maanta karamaane iga kicee kuwii mayra helay laga kaxayn waayey gabaygaas cabashada ah ee nuurdhagay sida ballaaran uu ugu qeexay dhibaha ergeyntii dheereed ka soo gaadhay waxa uu walwal hor la geliyey shirkii odayaasha oo martida u ahaa oday la maamuuso oo golaha fadhiyey ayaa go'aamiyey in geelii laga soo ururiyo raggii hortiisaan yaday wuxuu yidhi nimanyahow nuurdhagay geela uu doonaayo ha loo soo celiyo ama haddaan la yeelayn haddeer ha la dilo gabaygiisu waa gabay colaadeed ba'an ninkii garan karaayow col uu soo humi doono oo aan raagi doonin ayaa tixdiisa ku sarbeeban taladii odayga lama diidina waa la yeelay intiisii badnaydna geelii nuurdhagay waa loo keenay waxayse ahayd intii badnayda looma wada keenin 25 halaad oo ay ku jirto hashii geelaba loogu jeclaa waa mayree ayaa waxaa la xajeclaystay ninkii haystay oo wuxuu diiday inuu soo wareejiyo nuurdhagayna waxa uu ku adkaystay iyada iyo geela la maqanba in loo keena mooye inuusan wax ka sokeeya ku qanci doonin waxaa laga hor keenay maya qayaxan iyada oo la filaayay diidmadaas dabadeed intuu caroodo 25kaas tuldood inay sidaas ku xalaaloobi doonaan muddo doora kadib dulqaad dheeraada kadib gabayo digniin colaadeed ah ay digniin colaadeed ku dhan yihiin kadib nuurdhagay geelay ka maqnaa waa loo keenay karamaanna guulbuu garabtaas kala carraabay mar haddaynu hadal hayno dhaqanka ergeynta ee soomaalida raaxatada ahayd waxaa ila habboon inaynaan iska indhatirin masafo arrintaa wax badan inooga sheegi karaysa maansada ergeyntana meesha ugu mudan ka geli karaysa ujeeddada masafadu waa fududdahay waxayna ku saabsan tahay tulud geel ah oo keliya hal saluug la yidhaahdo oo reerihii lahaa gardarra uga meertay reero kale mooradoodana ku sugnayd ka ergeynta hashaas masafadu ha ku saabsanaatee meelisyadeeda koobani waxay in doora inaga bari karaan fanka ergeynta iyo heerarkii sare ee aftahamada soomaalidu ay gaadhay inkastoo tixda bilowgeeda iyo erayo gaara oo ku jira laga garan karo degaankii lagu tiriyey haddana nasiib darro masafadan aan mar dhow idiin soo gudbin doono lama yaqaan gabayaagii tiriyey iyo faahfaahinta sababtii keentay labadaba taasise sina inooga hor joogsan mayso inaan macaansanno dhagahana u raaricino tabaha quruxda badan ee uu gabayaagu adeegsaday iyo weliba qodobada uu ku tiiqtiiqsaday ee ay la ahayd inay saluug dib gacantiisa ugu soo celin karaan wuxuu ku bilaabayaa inuu ragga hasha ka haya xusuusiyo inkastoo ay intii muddo ah kale ood fogaayeen haddana qaraabo iyo tolnimo dhow inay wadaagaan colaad haatan dhexdooda ka aroosantaana ay xirgi xumo tahay wuxuu ku xijiyey sida reerka uu isagu ka yimid marnaba reeraha saluug haya aanu ugu quuri karin haba yaraatee wax dhibaato ah inay u geystaan wuxuu tusaaleeyey sida xoolaha boolida ah haddii la cuno loo eedo iyo wacdigii arrintaas iyada ah ay ka soo jeediyeen sayid maxamed cabdille iyo buunayaashii ay wadayga ahaayeen dabadeed wuxuu u soo jeestay si aftahanima ku dhan tahay ragga uu ergada u yahay inuu ugu cad inay tahay hal u yaqaan did iyo isra ahaanna ay iyagu u lahaan jireen carabka ayuu ku dhiftay arib oo hasha gaar ahaan ugu saabsan kuwaas oo uu islahaa waxay qolada ay xeradooda ku jirto ku qancin karaan iska soo celinteeda waxa uu raggaas u sheegay inkastoo waxa uu ka ergeynayaa ay tuli qora tahay haddana haddii maanta loo diido inuusan marnaba ka hari doonin inay tahay xoolo agoomeed oo ruuxii ibaheeda saraaxaa uu maalinta qiyaamaha eedi doono ifkana inkaar iyo balaayo ay ku mooreysnaan doonaan iyo ilaa 10 fac isir ahaan inay iyagu u lahaan jireen iyada iyo dirkeeda toonihina aanay lahayn caano iyo nacfi loogu xisho amaba eed loogu galo yaanan ka bi'ine wuxuu qaybtan hore ee masafada ku yidhi gabayaagu niman yahow ugaas nuur ilma adeerayaalow adinkiiyo annaga toona eedi kama dhexayso ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine in dhaweydsa araggeennu waa kala abaadaye odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo afar keliya kama joogno abtirsiinyaheenne aan collowna kii yidhi aqli ma laha buurane arwaaxiinna uma quuro ul inaan ku tuuro boolida la'aamana absir lagama qaado sayidkiiyo ikhwaankiisa ereygoodii maqasho hashuna waa arwaax keliya iyadaanse doonaye haddaan eegga laysiinna ma ilaawi doonee inkaar iyo wax daba guuri ibtiliya balaayo ilaaheenba uma geeyo ruuxii ayaan leh annagaa isir u haynay iyo 10 awoowe ilmo keliya kuma qaybto mana aamusiise ugu dambaystii waxa uu ku soo gabagabeeyey meelisyo ay hanjabaadi ku saynsaaban tahay dulucdooduna tahay xoog aan ku aarsado iyo itaal aan wax ku bi'iyaba waa leeyahay
dagaan idin lama wadaago reerkaygiina waxa uu iga baylahay muddadii dheerayd ee aan ergeynta idin dul fadhiyey haddaba haddaydaan godob iyo qaan hore toonan lagu sheeganayn waxaa ila habboon inaad tashi isugu noqotaan guddoonkiinnuna uu ahaado saluug in gacanta la iga soo geliyo oo ay berri foog jarmaado igu raacdo masafadiisii quluudda badnayd wuxuu ku idleeyey addimada wax lagu bi'iyo iini igama gaadhine orodkana haddaan rooro laylama ekeeyoe adduunkaygii iga baylah idinlamana aalloe kolka waxaa inoo aadan saluug inaan eryoodee arrinsada oo noo celiya isaayana ma hayne runtii weligay ma aan ogaan waxa uu gabayaagaasu ergayntiisii ka mutay wuxuuse malahaygu u dhow yahay in laga yeelay oo isaga oo saluug eryoonaya uu reerkiisii dib ugu noqday oo maxaan sidaas ugu malaynayaa waxaa igu weyn doodda sidaas u culus sidaa u qeexan sidaasna u kala dhigdhigan si maya looga horgeeyaa inay adag tahay maxaa yeelay waa yeelkii hore ee soomaalidu way u nuglaayeen weedha nuxurka leh gaar ahaan haddii ay maanse ku timaaddo nabad iyo colaadna lagu kala dooransiinayo